Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo inkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyay anigoo ah Maxamed Muxidiin Saxan Suxo barnaamijka dhalinyarada guud ahaantiisba waxaan ku eegi doonaa doorka dhalinyarada iyo saxaafadda ay ku leeyihiin horumarka dalka waxaana barnaamij ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku casuubnaa Professor Saciid Maxamuud Axmed Soona iyo dhalinyarada iyo suxufiyiinta gobolka haddaba waxaad ku soo dhawaataan dood wadaagaas u dhaxeeyay dhalinyarada iyo suxufiyiinta iyo Professor Saciid Maxamuud Soona aad baad u mahadsantihiin sida la sheegay anigu waxaan rabaa inaan xoogaa yar idinka baxayo mishinkaan u imid halkaan dalka u soo laabtay aniga waxa weeye ما شقينا إلى لاس تمانكي سنة دنبي community إنا كشقي موية شقة كلا مقاما أو retired بان كجري سيدا وكلا حاس كيغا أو أن خمتن سنة إسلام نوانين با أيضا retired سوق الشو معنا مدهي marka dalkan ku soo laabanay anigu dalkeena ku soo laabtay runtii xiisad badan oo maqabil waxa ka socda dhanba ay xanuujinayay 30 sano oo dawladda u shaqeynayay waxaan ku jiray dadka ugu dhow oo meelaha go'aanka ka soo baxa soddonkii kale oo hadda boqorkan socdana waxaan dariisada ku jiray sida Soomaaliya u socoto iyo caalamka sida loo arko marka waxa ballantu ahayd haddaan xamar tago anigu tabliiq baan sameynaya inaan Soomaalida waxa anigu aan dareemayo aan gaarsiiyo ma awoodo anigu Ilaahay baa iskale kun fayakun laakiin at least ana cabiro waxaan rabay marka وادين كده داليا إن صويريو وحوي أنا ما أنا سكت على يعني هالجنبار دجال بس سوالي كحرو تبقى اللي يرى دين كوكلا هي حرية وبنت قوة حيسمي لكن وح عجائب عليه دجال كاسون وحي وليس هو إنسان لا بقى قراي هاي لا بقى قراي ستي قرا وذا أو كصعدي قبيل labadaas baa Soomaalidu la tagayay wadaadada baa jiray kuwaan way ka duwan yihiin wadaadada hadda jooga oo xabada miskiin laakiin waxay u arkayeen gaalnimo inay tahay dawladnimadu waxa kamid ahaa wadaadada kuwa qaba dharka suweerka la gashanayo inuu xaaraan waxa dhalinyaradu ku dadaaleen inay gaalada baraan waxay waa la kala qaybsanaa waxa loo kala qaybsanaa dhalinyarada gaaladu waxay sameeyeen hierarchy waa la kala sareeyay shalemada marka la galo gadaal baa Soomaalida la fariisanaa iyaguna horay waa u dagaalameen waa soo qaateen sawirradii soo gashteen oo shalemada waa la furi kari waayay maxaa wadaadadii waa gaaloobaysa gabdhaha saacada qabaal lagu diri jiray oo sharmood wadaadada ahay waxaas hadda isla cudurkii baa naastaadan marka waxaa qodobka ka hor intaanad gobonimada la qaadan 1955 kii markay ahayd isticmaalka siyaasaddiisa waxay ka mid tahay dariska inuu culaabaa howd meesha la yiraahdo ma qanaan maqasheen Soomaaliya Itoobiya meesha ka soo gasho caloosha soo gasho howd baa la yiraahdaa 1955 waxaa la isku ogaa inuu nasiin doono oo anaga noo qaadan doono xoolaheena tay geela wuxuu gaarayaa meel shishe laakiin konton iyo shantiiba ku beegay wuxuu yiri Itoobiya arintaas meeshaas maamulaysa caadifadeen iyo caradeen soo kordhi waxa ku xigtay 56 markii uu horeysay ayaa emperor Ethiopian dhulka Soomaalida Haile Selassie 1956 wuxuu u yimid inuu Soomaalida dhan qabiilanahay qabiil kasta odagoodu u keenay iyo suldaanadii ogaasidii ilaa badaan u tirsanay odayaal baa laga wada ka qabiil qodbadu akhriyo waxay ahayd Soomaalida uu lahaa wuxuu yiri waxaad yeelaysaa Soomaalida daateen maslaxadiina waxay ku jirtaa Itoobiya bahweynta Itoobiya nala caysh adduun waligeena ma gumaysan nolosha ka soo qayb qaat wuxuu la hadlay Ingiriiska iyo Mareykanka qoladii soo guuleysatay dagaalku ku guuleysatay Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska iyo Ruushka wuxuu yiri waxaad ogaataan Soomaaliya wax qaran ma aha Soomaaliya qaran ma aha nation ma noqon karto waa qabaa'il iska soo horjeedo oo isnacab waxa kaliya daacad u yihiin boqortooyada Itoobiya ka daayay dawladnimada arrin xanuun badan oo Soomaalida aad u kacsahay
that was wixii anagu aan ka bilownay waxaa marka sidaasaan xornimada ku qaadanay waa diideen marka waxaa dhacday ingiriisku Kenya marka bilaabay NFD gobolkan la yiraahdo North Frontier District Soomaali bay ahayd magaca asaasi ugu bixiyeen waa la ogaa waxaa la yiraahdo markaas waxaa socotay wax la yiraahdo self determination yani qofka in loo ogolaado waxa ay dadku doonayaan referendum baa laga qaaday referendum 1963 80% dadkaas waxay qaateen Soomaaliya rabnaa inaan ku darsano يعني extremely لما سوينين واضح هذا كين العقب بحنيس وحكون جري متقنا إنجليز كالعقب بحناي هندي قاعد جوجا وصوالي النعب لكن ربيع المتقنا وحا وكسي جوج سيدات كمرة هسه بلك لو بلوت كبعدنا وحا فريز دبارمان إنجليز كان وحالي NFD كما بحكرت الجوب كين هل كاس أولاد بانا نودقي حق أولاد بانا نودقي هل كاس علم كانوا مقاوم Ethiopia markay arkeen wali in labadeena taaganahay 1964 dagaalkii uu weynaa way soo qaadeen Allahu naxariis Cabdirashiid baa madaxweynaha ku cusbaa annagoo election ku jirna oo doorasho ku jirna ayay dagaalkaas u dhacay annagoo ciidan fiican ma haysano oo xiisaanle ku oo dadkii Mareykanka ilaalin jiray Soomaalidu iska labisan tahay ma waxba ciidan ma haysan fiican waxay noqotay in dagaalkaas xuduudada soo weerareen dayuurada haysteen dayuurada ma haysan ciidan bay haysteen oo dawlad soo jirta boqolaal sano anagu ma ayagu ma haysan halkaas dagaalku ka bilowday dagaalka ciidan waa duqeeyeen dayuurada la dhacay halkaan ay ku jiraan si noo qalqaliyaan laakiin si kasta ay yeelaan waa naga adkaan waayeen waxa kuwii forsiga caliye markay arkeen inay aan kala harin bay ogolaadeen inay marka iyadii lagu maslaxeeyo Soomaalida bay isku geynayno laakiin balabadan dhaaf sidaas Soomaali intii saddexda kale ku weyn laakiin anagu ma harin 30 sano oo soo jirnay xoogeeni dhaqaalaheeni maalkeeni waxaan ku bixinay inaan shanta Soomaali raadin dalka kaliya wax kale u qabsoomay laakiin ciidanka ugu weyn Afrika oo dhan oo adduunka dhan ka baqaan baan noqonay waxay nagu qasbeen inaan ruush u gallo oo scientific socialism qaadan shuuciyad qaadan waxay ahayd si aan ku helno hub ruushku wuxuu ku fiicnaa wax kale ma ahayn dhaqaale male horumar male laakiin ciidan baan nahay kullu ciidankaas si aan quwo u noqono waanagii dagaalka ku qabsanay 87 daad waxaan ahayn gacanka ku waxaan helay cudur baan leenahay cudurkaas waa qabiil 67 markii laga soo baxay oo nimankii ka reynay oo nala ogolaaday oo adduunkuna maxay nala haysto ayaan qabaa'ilkeena u laabanay dawladnimadii ka tagnay doorashadii u dambeysay 1969kii waxaan ku galnay ilaa 60 baa xisbi oo qabiil ka socda calaamaday waayeen hadda ay ku dhitaan geed waa keeneen dhagax waa keeneen wax walba si calaamada u yeeshaan taas doorasho ku galnay qabiilkaas markuu helay waxa bilowday musuqmaasuqi waxa bilowday cadaalad darradii waxa bilowday boobkii waxaan isku naxariisanay taas ayaa ka caan qadhay markaas cirka gaarnay kacaanku waxaa soo waxaysnay sanooyinkii u horeeyay waxaan ka xasuustaa yani oo ayuuda annaga Soomaaliya Afrikaanku waa diideen ma Soomaali arinteeda in lagu daro oo laga hadlo ajandada in lagu daro كبر سانو قال 1973 وادينا إن الشركة كقيب الله أويو وأنا كمان مار أويو مس عنكرتو أفريقيا يونك مش شركة ران مدحويني شركة مدح ذكاها أهو قرأ أنت استاك حاجة كسوق على أنت أول لما عقل بدنا هذا وحي عسير لما مركنا بقبق قبل وقعد marka waxa weeye oo ayuuda waxay noqotay dayuuro special in la soo diro oo madaxweynaha loo soo diro oo wali condition kan ku xirnaa waxa way sanadka ku xiga 74 kana in Soomaaliya lagu qabto anigu waxaan ka mid ahaa madaxweynaha dadka dawladda la raacay for the first time in my life ayaan xeer salaasaha arkay madax wax weyn oo qiimo weyn oo magac leh adduunka joogan
geed caataa oo gacnihiisu baraf yihiin aan se waaba dhintay kan aan salaamay buu ahaa shirkii waa lagu daray Soomaaliya ajandadeeda lagu daray waana la qaaday sanadkii ku xigtana oo iyadu waxa lagu qabtay xamar meelaha maqasheen African Village waxa la bilaabo waqtiyaashaas guryaha la geeyay markay meel ma haysan laakiin inaan tusno in Afrikaan dadkaasaan hayn waxaan si xusay 1977kii intaan dagaalku dhicin waxa la qabtay markii ugu horeysay taariikhda ayaa dadka madow artiga inay soo bandhigaan idaha dhaqankooda inay soo bandhigaan annaga kibir intaan ka gaarnay dawlad weyn oo booyma oo ay wadaan niman Soomaaliya oo waa bari anagu dhan ku jirno Abdullah ninka Allahu naxariistay Umar Artob wasiirka arrimaha dibadda iyo anigoo soona iyo madaxda ka information kamid ayaa wafdiga la soconay afar qof baan nooga dhimatay dariiqa tay mid nagu dareen waxaan dhulka meesha islaamka inaan tagnaa rabnaa oo gobol baa jira islaamka bas baan ku qaaday darbu la fuulay afar baan nooga macal pilotkii ninkii ku xigay waxaan ku soo baxnaa weyn laakiin important waxa sagaal dalo Afrikaan ayaan tagnay markaan ka degno ayay sidii inayna taabtaan sidii maarta dad oo kuwa heesa oo inay la taabto kaliya yani qiimaha aan kale again dagaalkii baa dhacay Ethiopia alaabteena marka la soo baxay qabiilkii asagii baan marka la kacnay ilaa xafiisyadii dawladda wasiirkii tagaawar dadkiisa ay noqonay ilaa la isku tunto ilaa la isxasuuqo balaayada dhacdada waxaas kama waxaysanay wax badan baan keerana ku iska dhaafay taas yaana waxayna iska kala daadina waxa idin sheegaya anigu waxaan bartay horta professor ma jecli maxaa jira professor ma noqon jaamacadahan intaan shaqeynay si aan Mareykanka ku aado ayaan mid journalismada waa dhigay macadka oo diblomaasiga waa dhigay loogana waa dhigay waxaas waxaan raadinay Mareykanka saan uga helo macalinimo xagga loo bixin jiray saan u baxo anoo shaqeynay laakiin intaan maqnaa maxba kama waxaysto laakiin laba shay baan u soo baxay mar weeyay anoona wadaad ahayn oo sheekh ahayn inaan idin sheego haddaana diinta islaamka loo laaban waxa aan haynaa oo qabiilka ah kiina burburiyo way daawana ma noqon karo qabiilku waa kiina burburiyo waxa qaladaadka aan galay marka ugu waaweynaa waxaan soconaba sidii caruur baa inta loo qabtay ayaa maxaa idin fiican markaas qabiilaan kala nahay inaan kala noolaano cadaalad darra isku sameeynay balaa isku sameeynay inaan kala noolaano okay 4.5 ay soo heleen 4 ku wuxuu yahay ma yaqaan 5 ku wuxuu yahay ma yaqaan adduunka meel ay jirto numbers oo dad number ma jiraan anaga noo dhis qaladka koodan ka sax ka qabiilkii intaas oo nala dagay ayaan haddana ka dhignay daawo kuwan talaalka sameeymaan cudurka waxa lagu duraa viruska ku dhici doona lagu duraa jirka isla qabsanay kuwa waxay hadii qabiilka lagu duro ma ku daawoobay anaga ku sumo waana diraan lama anfacin waa laga daray waxa la yiraahdo federaal waxa la yiraahdo wali federaalku ma xuma wax fiican weey oo yaani adduunka hadda maanta waaba wuxuu noqday waxyaabo hore lagu maro laakiin hal dal oo 10 milyan inay 6 dawladood noqdaan meel ka jirto mar kitaab dhigay mar su'aashii waa laba nooc anigoo qaalaya qodobka meesha ku yaala professorkana aad loogu faa'iideeyay oo naasan yahay sidaa u soo nahay dhalinyarada waxaan ognahay inay yihiin lafdhabar waxaan ognahay inay yihiin dadka mujtamaca mustaqbal walba mustaqbalkiisa inuu ku xireen dhalinyarada sida yihiin dhalinyarada hadda joogta xadaacsanaan baa ku jirta way kala qaybsiyiin wadankii waxaa federaal baa la galay maamulaa loo qaybsamay qof walba wuxuu hoos tagaa maamul isteeda soomaalinimadiina meesha ka baxay qorshii qaranka ama horumarkii dalka qof walba inta meesha uu joogo ayuu ihtimaamka siiyaa sidee marka kusoo tuganaysaa ma door neeceed ama waddo saxa in la isku yimaado si loo helo qorshii qaranka in dib loogu adeego oo isagu noqdo mar kastaba kaalinta koowaad qaabkii waddadii loo mari lahaa
كو دلوات صحافة dadka miinada wala xifadda leh bas dadka caadiga qof walba had saxaf noqday sigaa wararka baafiya qof walba wuxuu leeyahay social media isticmaala sigaa wararka baafiya laakiin marka ka hadlayna dadka saxaafadda shuruucda yaqaan miinadeeda leh xifadda leh qaabka yani waddanka u burbursan yahay iyo xaaladihiisa way ogyihiin ka warhayaan ma laga yaabaa ayaga laftirkood inta meel la isugu keeno waddaniyadda hadda qofku matalan qarax baa dhacay meel wax ka dhaceen waxyaaba loo baahan yahay in la asturo qof walba leef soo gelaya marka waxaa imanaysaa wixii dhaawaca dalka gaadhay inuu sii fidayo oo dadkiina qof walba meeshuu joogo waxa weeye dhibaatada halkaa ka dareemaya marka sidee saxaafaddu ayaguna qayb ugu qaadan karayaan horumarka dalka ayagoo maraya shuruuc ama waxay dawladda ama wax dadka yani inta aqoonyahanada buursabarada ay u dejiyeen si loo helo horumarka dalka intaas ka waxay maasantahay haddii aan guda galno mawduuceena meesha saaran dhalinyarada sidee ay uga qayb qaadan karaan doorka horumarinta Soomaaliya ama gobolka ama meel walba aad joogtid horta sidaan wada ogsoonahay dhalinyarada maanta iyo dhalinyarada hore horta difference weyn u dhexeeyo midaas dhanka tacliinta ahaato dhanka waayo-aragnimo ahaato sida uu ka dhawaajiyay professorkan hana ahaato ii sheeg dhanka maxaa la dhahaa inay qofkii cabursan yahay ani ahaan maanta haddaan tusaale iska soo qaado haddaan dabcana meeshaan maanta aan barnaamijka jeediyo waxaa la leeyahay oradii joogniyo malaaqaaga iyo waxaa fadhiyo gudoomiyahaaga iyo awowgaa taasaa marka waxay noo keentay inaanan ka hadli karin mar walba na leeyahay adiga da'dii aad maanta wax ku daraasiileed maada gaarin laakiin adoora naga fariiso de mar haddii lagu yidhaahdo adoora fariisana kolley waxda ma sheegtay meesha ma yaalaan waa inaad tiraahdo hay waayahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada waa in odayaasha horta marka kow laga soo bilaabaa la yidhaahdaa adduunka waxba maraa la tijaabiyaa wax badan waa aragnay wax badan oo 30 sano odayahay laakiin waxaa la 30 sano soo socotaa sidoo dhalinyarada laga dhigo hana lagu fiiriyo bal 30 sano waxaan ka soo saarno taasaan kusoo gabagabeynayna maastin islaam alaykum waa run haddaanan la helin wax heer qaran oo loo midaysan yahay gobolladu ma tarayaan laakiin waxay waa kala duwan yihiin waxna waa informationka warka la isdhaafsanayo waxna waa wax soo saarka iyo warshadaha iyo xagga economica runtii federationka waa loo baahan yahay oo ah inuu noqdo dadku tartamaan oo gobolkaanu dadku wax qabtaan oo wax soo saaraan laakiin waa inay jirtaa meel communicationka xaggiisa inay ka midaysan yihiin shuruucda xaggeeda inay ka midaysan yihiin hadda waxaa dhacday shuruucdiina ma midaysna horumarkuna ma midaysna wax walba waa qaldan yihiin laakiin sida naloo sheegay qolooyinka wax nala daadahinaya annaga runtii annaga waaya inaan qolo kale eedayna maaha sidaan wax u daadahinayno si saxa maaha maxaa jira weli ma adduunka meelna kama dhicin transition qolo ku jirto waa gaari doontaa 10 sano laleeyahay meela ka dhacday adduunka mar waad ogeed ciraaq waa la baabi'iyey mataqaanaa afghanistan waa la baabi'iyey hal mar baa dawladda loo dhisay hal mar baa ciidanka loo dhigtay shaqadiina qabsaaliya annagana horta soo mara qabiilkii kii kale ka mara toosoo isku tiirsada habadiina daaqda ayaan dhihi jirnay tii way Soomaaliya toosoo isku tiirsada walaalka iyo reerkaaga inuu wax u soo hasdaar midda guud gal hal mid baan idin sheegay qabiilka Soomaalidu waxaa lagu leeyahay qabiilka mise uga tagayna qabiil waxa weeye qabiilku laba fog qabiil ilaahay midku noo waxay ah oo u dhalanay oo nala ka rabo diinta islaamku siday qabto walaalaheen ilma adeeradeen adeedkeen dadkeen inaan caawino oo istaageerno oo support gareyno waa midda walaalnimada ah isla qabiilkaas wanaagsan sunbuu noqonayaa markaad siyaasadda gasho waa midkii nabigu yiri waa ura markay ku dagaalameen qabiil tan xun oo la iska reebaa waa qabyaaladda maaha qabiil in la kala garto kan waa wadan kartaa adiga haddaad warshad keligaa samaysato oo ilmaadirada ka buuxiso waa fine laakiin waxaa la nacaa wasaaradda warshadaha lagu dhiibay reerkii baad u dhiibtay taasaana publicada la nacaa soo farageliso taas cadaaladday ka fog tahay diintay ka fog tahay iimaanka ka fog tahay qabiilka ilaahay noo qabtay oo islaamnimadana siisay hadda africa nimankan kenya 300 iyo something ayaa qabiiladoodii waxa cajaa'ib kale
isku rijira qabiilku degaa qolo kale mana tagto isku calaamaday leeyihiin hadduu hadlo waa iskaranaya magaciisu waa qabiil sidaas ay yihiin midka kale biilka binayo lama arko isma dhaqaale isma waxyaan laakiin ayagun maxay noogu ficnaadeen siyaasadda markay noqoto ninba maslaxadiisu raacaya they are different annaga waxa waaye labadii waa isku darnay xaggaan ku fiicnaa ilaahay nagu ogaa tii kalaan ku dartana waan ku daaweynaynaa baa nil taasaa nala degtay marka politics marka la dhexgeliy halkaas markastoo qabiil ku jira burburku waa jiray waa la kala roonaadaa saxafiyiinta ururo kala duwan leh dhallinyarada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si gaar ah waxaan u salaaminaa aqoon-yahankii noo daadihinayay barnaamijkan oo runtii wax badan aan ka faa'iidnay waxaan leenahay ilaahay ajir xasanaad ka siiyo barnaamijkan oo xarunta cilmi baaris ay qabato waa la inii sheegay inuu saankii ugu horreeyey oo la qabto in badan badankiina ka qayb gasheen muhiimkiisu waxa weeyaa in dhowr qodob in dhallinyaradu ay fahmaan habka dooda iyo barnaamijyada looga qayb qaato in kor loo qaado aqoonta dhallinyarada in la kobciyo maskaxda iyo habfikirka dhallinyarada iyo in masiirka markaas jira hadda waxaan ka doodnay doorka dhallinyaradu iyo saxafiyiintu ay ku leeyihiin horumarinta dalka in badan intana ka mid ah waxaan aaminsanahay maanta qof kasta meesha uu ka mari lahaa uu ogyahay in badanna saxafiyiinta iyo dhallinyarada waxaan uga mahad celinaynaa shaqooyinka badnaa ay qaban jireen iyo garabsiinta xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dhammaantiin waxaan ka rajaynaynaa insha allah barnaamijyadan tan marka ka soo qayb gelisaan sida haddaba uga soo qayb gasheen waqtiga u ilaaliseen ee noola ilaalin doonta haddii rabidno waana inii mahad celinaynaa barnaamijkan intaan nagu xiran yahay waxaana si gaar ugu mahad celinaynaa aqoon-yahan brofesor isagaa brofesorkii dalfiyey سعيد محمود أحمد صالح runtii in badan caawa nala farqiyay barnaamijka waa mahadsantihiin saaxiibayaal guud ahaan waa naga intaas barnaamijka dhalinyarada oo in kaga imaanayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ku eegaynay doorka dhalinyarada iyo suxufiyiinta ay ku leeyihiin horumarka dalka waxaana barnaamijka idin soo diyaariyay anigoo ah Maxamed Muxidiin Saxan Soxo waxa dhanka kaamirada iyo farsamada iga caawiyay saaxiibkay Saadaq Siciid Nuur waa Maxamed Muxidiin Saxan Soxo iyo Saadaq Siciid Nuur oo idin dhahaya sidaas iyo isma